أدبان إذن سلام يا أصحاب كحران جنال كيغا فرحية عبد الله ملوبو أدوني ذاك جوكتان مركو جوه الرئيس أيان إذن سلام يا مالما كهر وحان جنال كيغا صور دقي أستامها أي قبله كو جران كران ويلش السيدة نبتها وشعل أما أستامها قبله أي كو جران كرتو ويل كسيدة نبتها وشعل runtii wiilal aad u fara badan ila soo xiriiray qaar marka qisada commenti ka soo bixiyay maxaa la yiraahdaa astaamaha aan soo dhigan ka wadaaye marka waxay yiraahdeen farxiyo horta gabdhihii waad nagu dirtay ma jiro bay yiraahdeen qof astaamaha wada leh runtii inta ugu badan hadii astaamaha laga helo de gabadha waxay garanaysaa in wiilkaasi uu dhab u jecel yahay marka waxay dhaheen waxaan ka codsanaynaa maadaama farxiyo aad soo dhigtay astaamaha lagu garan karo wiilka gabadha sida dhabta u jecel waxaan kaaga fadhinaa hedeen inagana inaad noo soo dhigto astaamaha wiilku uu ku garan karo gabadha sida dhabta isagana u jecel taas marka waxay dhaheen cadaalad waay marka waa hal iyo hal waxaan waqti iyo dadaal marka ku bixiyay inaan keeno codsigii wiilasha oo ah astaamaha wiilku uu ku garan karo gabadha sida dhabta ah u jecel oo xiriirka la leeyahay marka wiilow astaamaha aan ku aqrin doono hadaad aragto oo daawato ka eeg gabadha aad la socoto hadaad ka hesho intaan astaamood waxaad ogaataa in gabadha ay tahay gabadh dhab ku jecel nolol fog iyo mustaqbal dheerna kaale marka ilaali waagaag runtii xiriirka ayaamahan dambe isku kalsoonaantiisa aaminaadu way iska yaraatay oo intiisa aamintaa way iska yartahay 30% iska dheh marka astaamahan waxaan fili doonaa inay idin caawin doonaan asxaabey marka horta gabdhaha markaan u soo geliyo aad bay ii soo boodgareeyeen igu soo mahad celiyeen idinkana ii soo mahad celiyay okay waagaag haddaba waxaan ku hayaa wiilow 13 astaan ama calaamadood oo aad ku garan karto gabadha adiga dhabta ku jecel iska eeg gabadha adiga dhabta ku jecel okay maxay ku bilaabanaysaa warqadaas aan ka akhrinaya hadaan dhinacan u jeesto farxiin maxay u jeejeysanahay dhinaaya waxa wax iska mala awaalay ama iska dhahay ma wax qoran oo aan akhrinayo ila socda okay ko gabadha ku jecel waa gabadha wiilow ku jecel markasta waa ay kugu faraxsantahay oo habbi ay kugu tahay yani inay adiga xiriir kula samaysatay oo ay kula socoto oo aad mustaqbalka wada hadlaysaan aad bay ugu faraxsan tahay labo gabadha ku jecel way kugu faantaa waqti waliba kumana qariso yani gabadha aad wada socotaan oo aad xiriirka leedihiin kuma qarinayso oo waxa laga yaabaa familka asxaabta kulli inay kaaga sheekayso ku dhaad war hebel aan wada soconaa hebel waa noloshayda hebel waa qofka aan rabo inaan nolol la wadaago hebel waa qofka aan balamaha wada galnay baashi waxa duubaya raali ahaada shaqadan joogaa xilli farxi waa wareerta adaa wareer wariya okay marka familko idil bay iyo asxaabtii ehelkay kaaga sheekay kuma qarinayso hadii laakiin aan lagu rabin ciidana kuma taqaanaba okay saddex waxay la saaxiibtaa saaxiibada iyo qaraabadaada gabadha adiga ku jecel saaxiibadaada iyo qaraabadaadii intay garanayso waa haday garanayso hadaysan garanin ma taqaanaba laakiin haday taqaano ehelkaaga walaalahaaga saaxiibadaada kulli way la saaxiibtaa maxaa yeelay adiga ay ku jeceshahay okay afar way kula jeceshahay waxa aad adiga jeceshahay mar waliba hadaad dhahdo baby waxaan rabnaa inaan xagga sameeyno waxa sameeyno xagga aan aadno ama ganacsiga aan sameysano ama shaqada aan aniga aan waxaan rabaa ka tago shaqo kale aan tago way kula jeceshahay oo way kugu dhiirigelinaysaa kuguma complain gareynayso okay shan maxaa la yiri gabadha ku jecel kama walwasho armad kala hartaan waxay aaminsan tahay inaad tahay nolosha adduunyada ay ku haysato yani isma dhahayso war qofkan ama ka taga ama hami ka weyn ba ku jiro ah qofkan waaba noloshaade sidoo kaaga tagaya ma ka tagi karaba ayay aaminsan tahay okay lix dib weyn uma aragto qaladaadka aad ka gashid way ku cafisaa ka hor inta aadan raali gelin ama kadib marka aad raali geliso gabadha adiga ku jecel qaladaadka aad ka gasho way ka cafisaa يعني قف كان مارمي كرا أديك ما أهان أو محايلي
وقف أذيك كتشعل مركا هداد أذيك كرالي جلسو أما أنت أذن كرالي جلين كهربا حلقة يابا إني كعفي سبع أوكي تضابو قبل مستقبل ككالي هي كتشعل جور دونك waxay mar waliba jeceshahay inay ka hesho jacayl la mid kan iyadu ay ku siiso haddii iyadu jacayl ay ku siiso adiga aadan u haynin adeer hore kaaga tagaysaa laakiin waxay rabtaa 100% inta ay ku siiso inaad adigana aad siisid okay sideed gabadha dhabta ku jecel wiilow waxay diidaa inay xiriir la yeelato wiilasha kale adiga ayayna nafteeda kugu koobtaa gabadha adiga ku jecel waxay diidaa ma ay ka hortimaada inay wiilal kale buugaag xiriir u furto ma fahmaysaa nafteedana adiga kugu koobtaa xilada yani anikii nolosha waan haystaa ilmahayga aabahoodna waan haystaa xaajigayga waan haystaa marka nin kale baabkiisa iga xir okay sagaal waxay jeceshahay inaad waqti badan la qaadato la sheekaysato time aad siiso saacado badan hadaad la hadasho waxay u aragtaa waqti kooban inaad wada xiriirteen yani timeka faraha badan waxba uma aragto waxay isleedahay alleele waqti yar baad wada sheekaysatay uu ka tagay because way ku jeceshahay laakiin hadaad aragto gabadh soo wacday oo marka 10 minutes aad la sheekaysato ku dhahayso walaalo waan jiifo rabaa iyo hebel la gaaray iyo saan waaye iyo cuntaan karinaya intee ka dhacday iyo waxaad ogaataa gabadha xageedu wax kuma badna okay gabdhaha ma rabo inaan isku diro okay toban waxadaad siisa ama hadaadan siinin okay waxadaad siisa ama hadaadan siinin taajir hadii aad tahay iyo hadaadan ahaynba kala ma jeclo ma fahamtay waayo danta ay ka leedahay waa mustaqbal ma ahan xaaladda markaas adiga aad ku jirto taajir miya faqiir miya lacag miya ku siiya ma ku siiya miya shaqadeeda ma ahan maxaa yeelay mustaqbal fog bay ka leedahay oo ay inaad nolol wadaagtaan okay 11 marka aad iskhilaaftaan waxay jeceshahay inay ku dajiso marka aad qalad wax u fahanto oo aad qayliso waxay isku dayaysaa inay si deganaana ku fahansiiso sida ay wax u jiraan yani iyadana kaamada baxanaaqayso kuma dhayso waryadeeda dab daran tahay inuu kala kaxee waxay isku dayaysaa wuxuu siday ahaayeen inay kuugu sheegto waxa laga wax yarna isugu dhacdeen marka waxa yarka ah na ay hadhowdi weynaadaan marka adiga laga yaabaa inaad wax yar oo isugu dhacay inaad wax weyn u aragto ama qalad aad ka fahantay waqti iyo juhdi ku bixinaysaa inay reality-ga ku sheegto gabadha ku jecel okay 12 hadii aad isku dhacdaan habeenkii ma seexato gabadha ku jecel waxay ku fikirtaa sidii xal looga gaari lahaa khilaafka hadda taagan khilaafkan ay dhexmaray labadiina ayay waqti dadaal ku bixisaa sidii xal looga gaari lahaa ma fahamtay wow ma sha Allah 13 wax walba oo nolosheeda ku saabsan qodobka ugu dambeeya wax walba oo nolosheeda ku saabsan ayay kula wadaagtaa oo ay ku sheegtaa iyadoo oo ku aragtay inaad tahay qayb ka mid ah wax walba ayada ku saabsan nolosheeda kaama qariso way kula wadaagaysaa maxaa yeelay waxayba u aragtaa inaad tahay qayb ka mid ah ayada okay marka bal gabadha markaa qalbigeeda ku siisay adiga saa ku jecel qalbi dahabka ah hadaad niyad jabisaan ya oo aad intaad 2 sano iyo 3 sano xiriir been oo jacayl intaad la jisho aad tiraado aniga waqtigan guur diyaar ma ihi aniga shaqan bilaabay aniga jaamacadda ima dhamaan maxaa jaamacadaada iyo shaqadaada ka galay maxaa markii hore jacayl oo la bilaabaysay okay inta waa kaftan asxaabay marka qoraal yar waxa jirta marka aan soo raaciyay maxaan iri fadlan u fuli ballankii aad ka qaaday waa gabadha fadlan u fuli ballankii aad ka qaaday haddii ay qalad ka gashay si fursad labaad si qof kasta wuu qaldamaa xuna qof walba u baahan yahay in fursad labaad la siiyo marka haddii qalad ka gashay ha oga tagin fursad labaad si marka intaas horta idin la wadaagayay maadaama aad soo qayliseen oo dhahdeen war farxiyooy gabdhihii baad u soo duubtay hadda wiilashana keen waan iiga ballan qaaday inaan tan wiilashana keenayo marka waa taa 13 qodob ee wiilow aad ku ogaan karto gabadha adiga sida dhabta ah ku jecel qodobada hadaad ku aragto gabadha ha ku dheelin ilaali balanta aad ka qaado fuli haday qalad ka gashana fursad si ilaa waa gabare bini aadan walba qaldama ma fahamti
ugu dambeyn marka waxaan idin leeyahay wiilasha waaye gabari hee marnaba ma xumaata ma xuma waa la xumeeyaa gabari marna ma xume waa la xumeeyaa waxay soo dhaysiin waa ogahay farxiyo gabdhaha u heelinaysaa naga dawaa nagu tiigsatay camal laakiin xaqiiqda iyo runta marka loo kaco gabar ama hooyo ma xuma mar waliba waa la xumeeyaa marka hala ilaaliyo gabdhaha hana la ilaaliyo ma fahamtay waan ku jiraa moogtay marka intaasan kusoo koobaya aad baad mahadsantiin asxaabtayda sidaad igu xiran tihiin marka wiilasha haddaad ka hesheen commentiga soo qarxiya aad baad mahadsantiin